in walaalkeen nin walaaladeena ka mid ah oo magaciisa la yidhaahdo Mustafe Ibraahin Axmed oo nin wadaada ah uu ku xidhan yahay xabsiga ama saldhigga uu ku xidhan yahay dhexe magaalada Hargeysa. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرنامج كاني كوا كربضيسن وحنو يدين سو قدبنا شاكدا مصطفى إبراهيم أحمد أو نين ديموبي أو لقويا شيء لعقاريسا كوبيا لحدا كون أو دولار هاللقويا شيء وحا دعي إنو يسكبحين وايو تاسنا وحي سببتي إن لحره waxaanu warkan idin soo gaarsiinaynaa maanta oo ay Ramadaan tahay 20 sanadkuna yahay 1445 hijriya waxa ka hadlay oo u hadlaya ninka xiran ee makruubka ah culimo uu kamid yahay Sheikh Abdirasaaq Sheikh Hussein Ali Albani oo muuqaal ku duubay aanu kaga duubnay magaalada Hargeysa markii ay taariikhdu ahayd 18 bisha Ramadaan والله مالمود كهر أما مالين كهر وخميستي وأكون أفر بقول أفرتني يشن هجرية نلا داوضة وإحنا وقبته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد وحن ولا الله مسلمين تهلك نقشين أمانت أو آيت هاي bishii barakeysnayd ee Ramadaan 18 in walaalkeen nin walaaladeena ka mid ah oo magaciisa la yidhaahdo Mustafe Ibraahin Axmed oo nin wadaada ah uu ku xidhan yahay xabsiga ama saldhigga uu ku xidhan yahay dhexe magaalada Hargeysa. wuxuuna ugu xidhan yahay waxa weeyaan deyn lagu yeeshay oo dusha ka fuushay oo iska bixin kari waayey ehelkiisina ay itaal u waayeen ay ku bixiyaan. ninkaa deyntaa lagu yeeshay maadaama uu iska bixin kari waayey uuna ku xanuunsaday xabsiga dhexdiisa waxaanu dhammaan muslimiinta walaalaha leenahay ee zakada bixiya ama raba inay wax sadaqaystaan in dhibtaa walaalkood ay ka faydaan oo lacagtaa lagu leeyahay ay ka soo bixiyaan. lacagtuna lacag aynu bixin karno weeye ka muslimiin ahaan waa $61,000 dadkii deynta ku lahaana waa ay joogaan. annagu maadaama aanu nahay culimadii joogtay Hargeysa waana la soo gaarsiiyey duruufta qoyska iyo inanka marka waxay dantu keentay inaanu dadka muslimiinta ah inaanu u sheegno soo gaarsiino. waxaana ogaataan inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam yidhi man nafasa can mu'minin kurbatan min kurabi dunyaa qofka qof mu'mino walaalkiisa dhibaato ka fayda nafas allahu canhu kurbatan min kurabi yowmi alqiyaama ilaahaysna wuxuu ka faydaa dhibaatooyinka aakhiro mid ka mid ah dhibaatooyinka aakhiro baa ilaahay ka faydaa subxaanahu watacaala. kadalika nebigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu yihi khayru nnaasi anfacuhum linnaas dadka waxa u khayr badan kuwa ugu waxtarka badan leh dadka wa khayru lacmaal camalna waxa ugu fadli badan suruurun tudkhiluhu farxad aad soo geliso calaa qalbi muslim qof muslima qalbigiisa aad soo geliso aw takshifu canhu kurba ama aad kurba iyo dhibaato ka faydo aw taqdi canhu daynan ama aad deyn aad ka bixiso aw tadrudu canhu juucan ama aad gaajo haysato ku dhegan aad ka erido oo aad gaajada ka biiso. walaalayaal dad walaalaa baynu nahay oo isku nool ilaahay baana 8 qaybood ee sakada lagu bixinay mid ka mid ah ka dhigay walqaarimiina calayha. marka waxaan leeyahay dadka muslimiinta uu ku dhex xidhan yahay ee zakada bixiya waxa waajib ku ah inay dadka qaarimiinta deymoobay ee jeelasha ku xidhan
iska bixin kari waayey inay ka bixiyaan xabsigana waa garanaysaan dhibtiisa welibana xanuun baa u dheer waana nin dee waxa weeye ahlu khayr ah oo dhibtaas soo gaadhay asal allah tabaaraka watacaala bimanihi wa fadlihi wa karamihi an yakshifa kurbatahu waxaanan rajaynaya insha allahu tacaala in shaashadaha nambarada ka muuqda in aad wixii aad ku soo sadaqaysanaysaan aad ku bixisaan waa mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaanu maanta halkan isugu nimi aanu doonayno inaanu la wadaagno walaalahayaga muslimiinta ah in ay nagala qayb galaan oo ah qof walaalkeena oo nin wadaad ah oo u xidhan dayn mustafe ibraahim axmed oo qaraabadiisii ama ehelkiisii ay awoodi kari waayeen in ay bixiyaan waxaa u muuqatay in walaalkaas loo gargaaro dayntaasina waxa ay u fuushay ganacsigu galay ayuu ganacsigu ku khasaaray alaabtii uu waddanka keenayna taariikhdeedii intihaa'iga ahayd ama expirekeedii dhaydkii bay gaadhay oo way dhacday marka dayn ahaan ninkaasi uu ugu xidhan yahay xabsiguuna ku jiraa marka waxaanu noo muuqatay inaanu walaalaha muslimiinta u bandhigno inay bisha Ramadaan oo ah muusim aad u wanaagsan oo khayraadkuna ay badan yihiin dadkuna ay ajarka aad u dalbanayaan in ay nagala qayb qaataan sidii qofka walaalkeenaas looga soo dayn lahaa xabsiga dayntana looga bixin lahaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد ولا ليال سيدا علماء يا مشايخ ذو أي شاغان ولكن مصطفى إبراهيم أحمد oo dayn ku gashiyoobay dadka muslimiinta ee walaalaha ah waxaanu ka codsanaynaa in walaalkeen hawsha aynu kurbada iyo dhibaatada aynu ka dulqaadno rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wallahu fi cawni alcabdi maa kaana alcabdu fi cawni akhiihi ilaahay tabaaraka wa tacaala umuurtaada uu ku gargaaraya maadaama qofku walaalkii ugu gargaarayo marka qofka muslimka ah ee qof kale hawshiisii iyo kurbadii ka caawinaya ee la shaqaynaya ilaahay tabaaraka wa tacaala umuurtaada ayuu ilaahayna kabaya ilaahay baa kuu sahlaya meel aanad filayn ayuu ilaahay umuurtaada markaa ka kabaya ama uu ku hagaajinaya tabaaraka wa tacaala marka walaalkeen sida deynta lagu yeeshay in aynu ka caawinno oo aynu marka walaalayaal hawsha garab istaagno sakaduna waa dadkii ku ansaxaysay sida Sheekh Albaniba uu inoo sheegay oo waa dadkii qaarimiinta ahay dadka deynta lagu yeesho sakadu way ku banaanto way ku ansaxaysaa waana qofkii sadaqa u noqonaysaayo sadaqada uu sadaqadaysanaya dunuubta iyo al-khataaya way ka bakhtiinaysaa sadaqadu waxay bakhtiisaa al-khataaya dunuubtay bakhtiisaa marka walaal sida biyuhuba dabka ay u bakhtiyaan marka hawshaas deynta inaynu caawinno fariintaasaanu dhammaan muslimiinta walaalaha ah ayaanu u diraynaa waa maalin Ramadaana waa khamiis waa 18 Ramadaan ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaynu weydiisanaynaa inuu soonka iyo qiyaamka bay naga aqbalo waayahay waxa aan ku soo gabagabaynaynaa halka aad wax ugu soo hagaajinaysaan walaalka dhibaataysan qofka go'aansaday inuu qofkan ka faydo dhibta waxay doontaba ha noqotee yaanu yaraysan ha ku soo hagaajiyo lambaro loo furay walaalka oo loogu ururinayo qaadhanka loogu ururinayo
marka waxaana ku qoran lambarada qaadhaanka dayn ururinta Mustafa Ibraahin ama qaadhaan ururinta Mustafa waana laba lambar oo midna Telesom yahay oo Zaad leeyahay midna Somtel yahay idahab leeyahay oo kala ah eber 6 3 8 3 4 6 5 5 5 mar labadan ku celiyo eber 6 3 8 3 4 6 5 5 5 lambarka kalena waa eber 6 5 7 7 7 6 8 5 lambarkan ugu dambeeyay waa idahabkii horena waxa weeye wuxuu ahaa waa Zaad marka waxa weeye nimanka odayaasha u hadlayna Hargeysa joogana iyagana waa lala xiriiri karaa oo iyaga hawshiisa muxuu ahaa gacanta ku haya khayr bayna isku ognahay muuqaalka xiga waxaan rajaynaynaa in walaalkeena oo deyntii laga bixiyay aan halkan idinku bushaareyno ilaahay jannaha inuu ku bushaareeyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh